xikaayaan doonaya inaan idinla wadaago caawa oo waxa lagu maagay dadkan wahaabiyada la leeyahay ama khawaarijta la leeyahay waxa lagu maagay waa waxan soo socda kow xikaayada koowaad YouTube-kay ku jirtaa waadna arki doontaan nin gaal ahaa ayaa markii lagu soo xaadiro geeridu ku soo xaadirtay ayaa waxa la yiri ilaahay ma taqaanaa ma qaanu rasuulka ma taqaanaa ma maxaa taqaanaa Sheekh Abdul Jilaani ma naqaanaa Sheekh Abdul Jilaani ma taqaanaa sooma naarta u kaxeeyay wala kaxeeyay naartii markii la geeyay oo naarta la geliyay ayaa Sheekh Abdul Jilaani iyo gurmada yimid kadibna wuxuu yiri hadaad ninkaasi naarta iga geysaan naarta dhan haraate baan ku dhufanay maxaa dhacay markaas waxa la yiri war intuu naarta inaga haraatin lahaa gaalkiisa jannada u geeyay warkaasi YouTube ku jira nin baa ku hadlaya suufiya walaalakum inaad dhageysateen sooma meesha maxaa ka muuqda Sheekh Abdul Jilaani baa ilaahay intuu ka baqay ayaa gaalkiisa loo sii daayay oo la yiri naarta yuusan inaga haraatiin soo warku sida ma kaafir kasto adduunka soo maray gaal kasto adduunka soo maray mu'taqad kasto gaalnimo ah oo heerka gaarsiisan inaad aragtaan waa yariya ma fahanteen عاميga muslimka waxba aqrisanay fidrada ku nool Sheekh Abdul Jilaani baa inta laga baqay baa gaalkiisii naarta laga soo saaray oo janno loo geeyay ma aqbali karo annaga hadaan aqbali weyno marka ma khawaarij baana ya ma khawaarij baana kulligan baa khawaarij noqonayna marka aan isla noqono sooma mid kale wuxuu leeyahay من ذكر بغير وضوء فقد مات في الحال ويسقال لأن شيخ عبد القادر الجيلاني نكي مجيئيس الشيغو اسلام مركاسو دمجر ويسقال لأن واي مركا نكاسا أكو أبترستين مركا دمدادك الشيخ هدي دادك إيدا مالينا حري شيخ عبد القادر الجيلاني يو دادك والله إذين وارنا مالين ويسقال لأن هدي الرقوفك وكو توصلا سيوايا لي markaasoo Sheekh Abdul Jilaani ilaahay toogay sidaas ilaahay hadana markii dambo ay ku haka walu fiirsada ilaahay baan ku dhaariyay ilaahay magaciisa iyo dhikrigiisa waa la xusi kara adoon waysa qabin bi ijmaa'i ulama adoon waysa qabin ilaahay waad xusi kartaa magaciisana waad sheegi kartaa bi ijmaa'i ulama khilaaf kuma jiro dariiqadiina waxay tiri Sheekh Abdul Jilaani magaciisa waysalaan hadii la sheego waa lagu dhiban jiray هل يصدق هذا عقل سليم يا عقلي في يوميا وحرمين كره طيب كدروا دي بالوقت ميت كلا وحوليه شيخ ويس بوك الله يسوله شيخ ويس يا علماء فربضان معجزة إلى هانشرين بول ومعجزة دي النبي عيسى وكلاه وقالوا كان قصة وحيري شيخ ويس يحرتيسا أردديسا مريدينتيسا أيا قولا سو مرتيبي سو أردديسا الله سعود شيخي والا فريسي نو فريسا ليلي والا مرتقى هذا يساقي أرددي وي فريستين رتب الله قال نيف جيلا نيف كي مركي هرقي لغا السيبي أيا وحا دعي خلط رتق الله قلي midkay lahaayeen mehe nin kale mid uu lahaa bay ku khaldeen markaas sheekhi waxa la sheekhow ratibaan idin qalay markaan idin qalayna ratigii nin kala yeeshay kaanagi iyo kiisi waa isu ekaaday ninkii ratiga lahaana meeshan uu noo taagay ratigiisii buu rabaa wuxuu leeyahay haddaad 20 rati oo kale isiisaan idinka yeeli maayo kaygii uu siiyay والشيخ محمد الله شيخ ويسو بالحاجة كتن
ratigii la qal haragii laga siib in la googooyo un baa laaban hilibkiisii ninkii lahaana meeshuu taagan yahay wax kalena ma rabo bal sheekhow tali baa leeyahay wuxuu yidhi sheekh Uways aawe ratigii waa kana la yidhi waa qalan yahay haragiina waa laga siibay hilibkii la jarjaraa laaba markaasaa wuxuu yidhi haragga saara ratiga ku celiya haragii baa la saaray buu markaasaa wuxuu yidhi qum biidnii ratiganow idankayga ku kac buu laa biidni illaahi idanka ilaahay ma aha aniga sheekh Uwaysa idankayga ku noolow oo soo kac ratigii waa soo booday buu waa bagaaba isagoo nool ordahay ninkii baa ratigiisa le warsigaaga qaadaa le okay nebi ciise calayhi salaam mucjizaadkiisii waxaa ka mid ahaa dadka dhintay buu soo noolayn jiray laakiin muxuu ku noolayn jiray yaa biidni illaah sheekh Uwaysna muxuu ku nooleeyey wixii dhintay biidnihi laa biidni illaah soo kufri ma yaa awood ilaahnimo la sheegtay awood ilaahnimo baa la sheegtay ayadana social media aad ka helaysaan حكاية أفراد قوتي شعب غادر الجلال بزوجتي أتمت فتضرعت والتجأت إليه ويتضرع ذي وحين مغنقش شيخي وطلبت حياة زوجها من كذا نورشي سينا كدرت انت واحد انت من كذا نورشي سينا كدرت فتوجه الغوث إلى المراقبة غوث مراقبة الله بني أيوه قال فرأى وحواركي في عالم الباطن عالم كعالم الباطن كعالم غيبك أيوه حكواركي أن ملك الموت عليه السلام يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم ملك الموت والسماء السيف فوريا وأرواح دي معنى تعلق بضوضين السيوطة أيوه فقال وحي يا ملك الموت ملك الموت ولا الله قف وعدني روح خادمي فلان استاقوا واحد سيسا ابل خادمك إياها روح لي سيسي فقال ملك الموت وحي إني أقبض الأرواح بأمر إلهي ورانيقا أمر إلهي أيان أرواح ذنية وكسوط بالوضاء وأؤديها إلى باب عظمته الباب كعظمتي سأيان أكتابي كيف يمكنني أن أعطيك الروح الذي قبلته بأمر ربي سينكو سينا يا أمرك ربي جاي روحا كسوط بالوضاء شعب الغادر وكعل عليه وحيري ورنيه الروح خادمك يجسي فامتنع من إعطائه ملك الموت دينه بحيه وفي يده ظرف معنوي ظرف معنوي يعني دنبيل معنوي هو وطا وسيد دنبيل شوكولا شيء دنبيل شوكولا هو وطا فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم وعلى كل حسبان أرواح دي ما نتعلق بالضوء فبقوة المحبوبية جعلك إلهي يا ساق كدح يا شعب القادر الجيلاني قوتي سي أيو جر الزنبيلة دنبيش أيو صادفته وأخذ من يده ملك الموت عنتي سي وكسو قاضي فتفرقت الأرواح أرواح دي واحد على ورجعت إلى أبدانها جرك كسو بحضي من كل عمد بل تانا قصوده واقصك له ملائكتي waxaa ka xoog badan oo balaaya ka dhacday Sheekh Abdul Jilaani xikaayo kale oo iyadana mashhuur horay baan idinku sheegay taa iyada waa xikaayadii ya Salman waxaan jiray sheekh Salman looranji marka wuxuu ahaa nin waliga Soomaaliyeed ku kori jiray waa dhaqaaqay markaas wuxuu yiri ya Xanaan ya Xanaan ya Xanaan ya Xanaan وصلنا بس تري ولكن يكيسها وخادم كيسها مريد كيسها هي الشيخ أنا قراءة والله في القلب بقي غير كلمة شوية ما يا شيخ هو قراءة هي هذا كل بديل وهي شيخ يا روح بيسيني يا حنان يا حنان مش إلى هون متعب يا سلمان يا سلمان يا سلمان يا حاجة صدرنا مركز يا سلمان يا سلمان يا سلمان يا صدرنا مركز هو لك ولا مرة يا إبليس كمي يقولوا جاري واحد صدق إبليس يقول عن غيره هذيك شيء يا حنان يا حنان غيره اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أقول له أقول له ما يسا أحسن اسم كيسة ما سكت عاد ليس وما قال من بعده يا حنان أقول له يا حنان اللي يحصل على الحوصات سيدي تدين بالجوب بس الله وهي يمكن يروح للشيخ عليك مرعى هو قبولي مرعى إلهي هو قبولي واحد حكم عليك مرعى إلهي عايش وقبولي
halkaasi maxaa ka muuqda marka ibliis baa dadka tawxiid baraya yaa sheekhiina shirki buu baraya ibliis baa u yimid oo muriidkii baraya war yaa salmaan iska daayo yaa xanaan qabso magac ilaahay qabso ibliis baa baraya sheekhiina muxuu baraya war magac ilaahay haddaad qabsato waad dhiciya ka sheekha qabso yaa wax caqli ilaahay baan ku dhaariyo rumayn karaa waxaas weeye waxa la isku maagay iyo wax la mid weeye nimayo waxaad aan noqoysaan waa khawaarij waa wahaabiyo tolaayay diintiyay dariiqooyinka loo soo dhacayay waxaasaan diidnay anagu waxaasaan diidnay oo aan idhi diin ma aha kufriga la leeyahay dadkaad gaalaysiiseenna waxaasaa kufriyaad ah ruux kasta oo muslim oo fitra ku noolo xataa waxba aan baraninna wuu garanayaa waxaas inuu kufriyaad yahay waxa marka la leeyahay waa wahaabiyo waa khawaarij waa gaalo waa kan qabta la leeyahay taayada waa inaad inta fahantaan tusaalayaal baan u soo qaatay ujeedadu ahayd